بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وناكسين إذا لهانتين بداوضيال صاحبيال halkani waa barteena YouTube-ka taariikhdu waxa sii baxaysa 15 bish sagaalaad sanada 2021 dabcan waa habeen ay soo galayso daawadayaal khamiis ku soo dhawaada wararkeena qodobada wararkeena aad ku daawad doontaan amintan waxa kamid ah Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble oo la sheegay sababta ugu weyn ee uu dagaalku ugu jiraba inay tahay in uu soo dhiso madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana uu noqdo madaxweynaha hogaaminaya dalka iyadoo ay isleeyihiin ex saaxiibo hore oo la sheegayo inuu Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen uu baahaa xubin firfircoon oo ka tirsan ururka Damul Jadiid oo uu hogaamiyaashooda kamid ahaa ama ragga ugu sarsareeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Roble oo arrimahaasi ku bedelanaya safiir uu ka noqdo dalka Kenya iyo xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud oo wax ka soo dhiso isagoo ganacsigiisa u jeesan doona dhanka kalena daawadayaal doorasho aad u adag oo ka socota magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabelle iyadoo meeshii ugu dambeysay maraysa hogaamiyihii ka socday dhanka ama garabka nabad iyo nolol oo laga adkaaday taliyihii ayraahda Sareey Guuto Bashiir oo balse uu taliye u magacaawday Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo xil magacaabay isagoo aan wali xilna la wareegin sidoo kalena hoyga habar khadiijo ee nisa aan wali tagin sidoo kale wararkeena waxaad ku daawan doontaan fariin loo diray siyaasiyiinta mas'uuliyiinta ugu sarreeyay gobolada waqooyi gaar ahaan Cabdi Xaanshi iyo Mahdi waa Ra'iisul Wasaare xigeenkii gudoomiyaha aqalka sare qodobadaas ayaa daawan doontaan intaas ugu gudagin waxaad ka codsanaa barteen YouTube-kana subscribe tiraadaan gabalka furtaan like saartaan muuqaalka siina share gareysaan oo la wadaagtaan saaxiibadiina si ay noogu soo biiraan uga mid noqdaan bahda ku xiran ee qaranka TV isla markaana helaya wararkeena iyo macluumaadka ugu dambeeyay ee wadankeena hooyo aynu ku horeyno daawadayaal Sahro Maxamed Xasan waa hooyo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka hooyo lambarka shaashada ku qoran ayay wadataa fadlan caawi oo wixii aad awood u dir Sahro waa hooyo Soomaaliyeed xanuunsanaysa lug iyo gacan ayaa daawadayaal baqtiya ama dhacay run ahaantii oo tabar dambe isagu soo harin ma ay kici karto waa maamo Soomaaliyeed oo tabcaana oo sariir taala ama sariir saaran sidoo kale daawadayaal maamadani afka ayaa markaasi carabka ayaa banaanka yimid oo aan shaqeynayn isaguna waa maamo xanuuno kala gedisan qabta waxay u baahan tahay la tacaalid ama daryeel caafimaad oo dhameystiran sidoo kale waxay u baahan tahay waxay cunto iyo waxay ku noolaato fadlan aynu caawino hooyadan Soomaaliyeed si markaasi ayaduna ay u guuleysato annaguna aan u guuleysano adduun aakhiro aynu ka helno ajar iyo xasana aan soo koobi karin ilaahay xaqiisa aan wax u dhigano fadlan qof kasto wixii aad awoodid u dir magaalada Muqdisho lambarka shaashada uu ku qoran yahay magaceedana dabcan waka qofkii faahfaahin dheer u baahan waa wici karaa Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa wali waxa uu bartanka uga jiraa dagaal culus oo uu kaligiis iska qaaday isla markaana uu la galayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya xilli loo dirsaday doorasho balse Ra'iisul Wasaaruhu ku mashquulsan yahay arrimo aan ahayn arrimihii loo dirsaday ayaa daawadayaal waxa soo baxaya macluumaad iyo xogo dheeri ah bal intaan u gudagelin macluumaadka iyo xogaha dheeriga ah mar isoo raac oo kaalay aan ku baro qofka uu yahay ama shakhsiyadda dhabta ah ee Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo halka uu ka soo biloomay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo ah engineer sidoo kalena muddo soo shaqeeyay oo shaqooyin kala gedisan oo NGO iyo hay'ado ka soo shaqeeyay waxa sidoo kale uu yahay xubin firfircoon sida xoguhu ay soo baxayaan marba marka ka sii dambaysa xogo kale ayaa daawadayaal la helayaa isla markaana laga helayaa sooyaalka saaxiibtinimo iyo midka siyaasadeed iyo waliba midka bulsho ee ka dhaxeeyay asaga iyo madaxweynihii hore ka horeeyay madaxweynahan Mudane Xasan Sheekh Maxamuud sawirkan sida aad u jeedaan qofka hoose ee fadhiya waa Faarax Abdulqaadir Faarax Sakiin ninkii loo yaqaanay oo ahaa hogaamiyihii Damul Jadiid sawirka kale ee ku xiga ninka yarka oo daayirta waa Cabdiraxmaan Odowa wasiirkii hore arrimaha gudaha haddana ah xildhibaan sawirka qofka taagan waa u jeedaan Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagana waa u jeedeen isla sawir kale ayaa haddana waxa ka soo muuqday Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud qofkan kale ee geeska taagan isaguna daawadayaal dabcan waa Cabdikariin Xuseen Guuleed waa qofka sirwaalka madow isla markaana dhexdu u xiran tahay inkastoo barigaas uu ka duwanaa sida uu haatan yahay oo qof hilboon u ekaa si kastoo ahaataba dhammaan astaamahani waxay muujinayaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo soo magacaabistiisii Ra'iisul Wasaarnimo ee Maxamed Xuseen Roble Ra'iisul Wasaaraha inuusan ka fiirsan shakhsiyadda dhabta ah iyadoo aan la iska hubin in la soo magacaabay iyadoo Fahad Yaasiin iyo hogaamiyaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor ay ku lahaayeen doorar aad u waaweyn iyadoo Fahad Yaasiin iyo isgaranayeen Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble balse isgarashadoodii iyo wali ixtiraamkii iyo wanaagii ay sameeyeen uu u muuqdo inuu u dacareynayo iyadoo uusan wax cadaalad raadinayna inuu kala dagaalamayo si siyaasadda inuu la dagaalamayo
haddaba maxay tahay ujeedka rasmiga ah daawadayaal maalinkii shalay ahaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble wuxuu madaxtooyada ku qaabilay midowga musharaxiinta si gaar ah madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya sida Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud yoolka ugu weyn ayaa waxay tahay inuu markaasi Xasan Sheekh Maxamuud uu tuso inuu shaqadii u diray uu wado waxaana boqolkiiba boqol la aaminsan yahay dhammaan waraaqaha tuuriyada soo baxaya in Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ay door fiican ku leeyihiin dhanka siyaasadda marka la eego hogaamiye Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame isagu waxa la sheegaa walow uu markaasi iska mar walba uu isku muujinayo hogaamiye raadinaya xil siyaasadeed oo madaxtinimo gaar ahaan inuu gaaro mansabka ugu sareeya ee dalka haddana waxa la sheegaa inuu meelo dhow iska rabo asagu sida wasiir in laga dhigo wasiir arrimo dibadeed ama wasiir xubno muhiim ah inuu rabo balse han fog uusan lahayn laakiin ujeedada ugu weyn wax qasaya ayaa lagu tilmaamay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu yahay daawadayaal waxaana ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble uu ku dadaalaya sida xogta itibaaxayso inuu ku dadaalo sida Xasan Sheekh Maxamuud uu u guuleysan lahaa xildhibaano aad u badan uu heli lahaa daawadayaal isagoo gobolada waqooyi xildhibaanadooda inuu wax uga jajafo u baahan sidoo kalena u baahan xildhibaanada saddexda dowlad goboleed koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle inuu xubno uga soo saaro balse taasi aysan socon doonin xogta ugu weyn ee taas ka dambaysa ayaa lagu sheegay ama lagu tilmaamay in ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble uu maadaama uusan musharax madaxweyne uusan ahayn inuu iskaga laabto dalka Kenya oo qandaraasyadiisa shaqooyinkiisa ku laabto balse uusan ahaan qof shacab ah ee uu ahaado safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya si uu masaalixdiisa iyo danihiisa gaarka u fushado sidoo kalena siyaasadda uu markaasi uu kula jiro isaga oo mustaqbalka dhow siyaasadda han kale sida xogo itibaaxayaan iyo inuu madaxweyne noqdo oo kale waxaana sidoo kale loo ballan qaaday oo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud madaxweyne hore ee Soomaaliya u ballan qaaday hadii uu guuleysto inuu xukuumadda uu soo dhisayo sida wasiirada iyo dhammaan shaqaalaha ama safiirada oo kale iyo shaqaalaha dawladda inuu kala tashan doono qayb libaaxan uu ka qaadan doono dawlad ay wadaagayaan balse uu isagu safiir u ka yahay ee dalka Kenya balse uu korka kala soconayo in ay dhisi doonaan ila wareedyo dhameystiran oo daawadayaal u dhown doolal arrimaha Soomaaliya kuna jira siyaasadda ayaa xogahan siiyay waxaana dagaalka ugu weyn u ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble hadda u galeeyaa isagu maaha musharax balse waxa ugu weyn uu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo Fahad Yaasiin dagaalka ula galaya mana jirto cadaalad igraan tahliil ee uu raadinayay waa cadaaladaas oo ku gabasho laakiin ujeedada ugu weyn waxay tahay waa inuu dhiso Xasan Sheekh Maxamuud waxaana halkaasi ka cadaatay in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo aysan qaadeen talaabo aysan iska hubsan oo ay dhexda u galeen hogaamiye damul jadiid ah ay markaasi ka dhigteen ra-iisul wasaare intii hore uu isdabaalinayay balse markii lagu wareejiyay doorashada iyo wixii ka dambeysay iyo markii xogaa uu ogaaday inuu fursad iyo chance siyaasadeed haysto ayuu soo banbaxay oo uu banaanka yimid ayay leeyihiin dadka siyaasadda oo doorasa waa tahay daawadayaal sidoo kale maanta Jowhar waxa ka socotay doorasho aad u culus taasoo ah kursi xasaasi ah oo ay u kala tirtamayeen musharaxiinta kala ahaa Safiir Maxamuud Tarsan iyo waliba daawadayaal Professor Cismaan Dufle iyo raage Xasan Xuuti Cismaan Dufle wuxuu ahaa ninka kursiga hore ugu fadhiyay maanta mar kale ayuu difaacday daawadayaal Professor Tarsan wareegii labaad ayaa lagu reebay laakiin wareegii ugu dambeeyay ayaa hadda waxa ku guuleystay Dufle oo codad aqlabiyad la helay kaasoo hore kursiga ugu fadhiyay daawadayaal si kastoo ahaataba kursigaas ayaan soo galin gacanta nabad iyo nolol doorashadii shalay dhacday Hirshabeelle ka dhacdayna 3 kursi saddexda kursi laba kamid ah nabadii nolol ayaa ku fariistay halka kursiga kalena ay markaasi mucaarid ku heleen gaar ahaan xisbiga UPD maadaama Muuse Suudiyalaxow uu ku guuleystay kursigaas waa tahay daawadayaal wareegto aan meel ay ka soo baxday la garanayn ayaa waxa soo saaray ninka markaasi taliyaha nise isku haysta waa Bashiir Goobe balse meel uu ku shaqeynayo iyo meel uu jooga aan la garanayn Bashiir Goobe sidaad ogsoontiin waxa taliye u magacaabay sareey guud Bashiir Goobe waxa taliye u magacaabay ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo u magacaabay taliyan nisa balse ma uusan tagin hoyga Habar Khadiijo oo nisa ayaa haysata sidoo kalena kama agdhawaan sidoo kalena cid xil ku wareejisay ma lahan taa bedelkeeda madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya taliye Yaasiin ama gaashaanle Yaasiin ayuu waxa uu ka dhigay taliyaha hay'adda nisa kaasoo si toos ugu shaqeynaya hoyga Habar Khadiijo ama goobta markaasi hay'adda nisa saldhig u ah si kastoo ahaataba wuxuu magacaabay oo xilka qaadis ku sameeyay isla taliye Yaasiin oo sidoo kale taliyaha gobolka Banaadir ee nisa ayuu wuxuu sheegay inuu xilka ka qaaday oo magacaabay Muxiidiin Maxamed Jimcaale Warbac balse waxa isweydiin mudan ama in la isweydiyo u baahan nin aan xil la wareegin oo uusan madaxweynihii soo magacaabin oo ra'iisul wasaare u magacaabay oo ra'iisul wasaaruhu maandheed uusan u haysan ama dastuurka uu soo ogoleen ma magacaabi karaa qof mise ridi karaa waxa la isla fahansiyaa inuusan waxba magacaabi karin waxaan ridi karin taliyana uusan ahayn
cabdullaahi maxamed nuur oo aan u aqoonsanayn wasiir sidoo kalena ka mid ah dadkii markaasi uu ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble isagoo dastuurka baalmaraya uu soo magacaabay ayaa waxa uu soo dhaweeyey waxa uu ku sheegay xilka qaadista iyo weliba xil magacaabista uu sameeyey taliye goobe sareeye guud taliye hore oo markaasi hore usoo shaqeeyey isla markaana booliiska iyo nisaba kasoo shaqeeyey goobe laakiin waxay u muuqataa in ay tahay markaasi arrintani arrin aan waxba ka naascadayn oo ah in markaasi uu iska sheeganayo xil aan cidna u ogsooneyn ugu dambeyntii daawadayaal waxaa dhawaan la filaya in magaalada muqdisho ka dhacdo doorashada xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuma tiri doono gobolada waqooyi ee dalka kadib heshiisyo ay gaareen Cabdi Xaashi Mahdi Guuleed qoraal ka soo baxay guddiga maamulka doorashada kuraasta gobolada waqooyi ayaa looga codsaday Mahdi Maxamed Guuleed ra-iisul wasaare xigeenka dalka iyo gudoomiyaha aqalka sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdilaahi inay soo gudbiyaan liiska murashaxiinta aqalka sare ee Somaliland kasoo jeeda murashaxiinta ku tartamaysa kuraasta aqalka sare ee loo qoondeeyay gobolada waqooyi ayaa waxaa soo qoraya Cabdi Xaashi iyo waliba Mahdi Guuleed ra-iisul wasaare xigeenka iyo gudoomiyaha aqalka sare oo ah labada nin ee siyaasad ahaan hadda hogaaminaya siyaasiyiinta ee kasoo jeeda gobolada waqooyi qodobka ayaa warkeena ugu dambeeyay tan iyo warkiisa xiga sida iyo nabadiino